kulanti wacan oo wanaagsan daawada meel kasta aad joogto ku soo dhawow qaybta saddexaad sheekada jab jacayl iyo jamasho dumar. Cali ayaa ku yiri Zamzam, waxa jira wax aan in badan ka qarinayay, maalin iyo habeen qalbigayga ka guuxayay aan awoodi waayay adoo fasalkayga ah in aan kuu sheego waxaas oo ah aniga si dhab ah ayaan kuu jeclahay Zamzam. Kaftan iyo ciyaarna maahan ee waa iga dhab ayuu sii raaciyay hadalkiisa. Zamzam oo markii hore hadlaysay ayaa mar qura juuq laga waayay, hoos ayayna u jeesatay. Cali marar badan oo uu ku celceliyay ayaa hal mar inta kor u fiirisay ku tiri, Caliyow waad mahadsan tahay bandhigaaga, waan ka soo fikirayaa ee waqti si adoo mahadsan. Zamzam arinkan dhabarjab ayay ku tahay, waayo marnaba ma doonayso in uu xiriir la yeesho nin Afrika jooga, iyadu waa qalbi ka dhoof, waxayna jeceshahay nin Yurub degan. Waxay ku hamisaa had iyo jeer in ay guursato nin baasaboor Yurubiyan ah haysta ama ugu yaraan ka yimid. Cali maalin kasta waa la xiriiraa Zamzam, balse hadal qoman lama siiyo oo waxay u sheegtaa in aanay wili go'aan gaarin. Cali maalin kale ayuu wacay, haddana waxaa loo sheegay inaysan wax go'aan ah gaarin, welina ay u baahan tahay waqti kale, taasoo murugo iyo urkutaalo kow ah ku dhalisay. Waxay arintu saas ku socotaba maalintii Cali uu Zamzam gurigiisii ku casuumay waxaa laga joogaa 3 toddobaad, welina Cali ma hayo jawaab uu ku qanco. Jabba waa kan dambeeyay. Cali waxaa soo gaaray warar sheegaya in Zamzam lala doonayo wiil uu adeerkeed dhalay oo Canada jooga. Zamzam qudheedu hadalkaasi waxay ka maqashay Faadumo oo ah walaasheed ka weyn, wayna u riyaaqday hadalka. Cali si uu arintaasi wax uga ogaado ayuu dhalinyarada kuwooda uu aaminsanaa oo ay xog hoosaad isweydaarsan jireen ayuu arinkaasi wax ka weydiiyay. Waxaa loo xaqiijiyay in hadalkaasi uu sax yahay. Toddobaadka soo socdana uu imaan doono Cabdirasaaq oo ahaa wiilkii uu dhalay Oday Faarax Gurey oo Zamzam adeerkeeda. Cali waxa uu si halhaleel ah u wacay Zamzam, mise maba laga qabanayo taleefanka. In ka badan 5 miss call ayuu u reebay, balse wax u soo jawaabay ma laha. Dhanka kale Zamzam waxay dhibsatay wicitaanka badan ee Cali, waxayna go'aan ku gaartay in aanay marnaba ka qaban telefoonka inta ka dhiman imaanshaha Cabdirasaaq. Mar haddii uu Cabdirasaaq yimaadana ay ku tiraahdo Cali, anigu wax boos ah kuuma hayo, wiilkan weligay ku hamin jiray waan helay ee nabadeey, faraskaadu ha ku wado. Inta uu jidka ku soo jirana ay Cali telefoonkaba ku dhagaysato. Cali nin quusanaya ma ahee wuxuu go'aan ku gaaray in uu yimaado guriga Zamzam, wax kasta ha dhacaanee si uu mar qura u arko Zamzam. Hase yeeshee intii uu jidka ku soo jiray ayuu arkay Saadaq oo ka mid ah asxaabtiisa kuwa ugu firfircoon. Cali markii uu Saadaq ugu sheekeeyay sida ay wax u jiraan iyo xaaladda guud ee murugsanna, wuxuu u sheegay in aanu gurigaasi tagin oo uu iskaga laabto. Sababta uu sidaas u yirina waxa ay tahay qoyska Zamzam waa qoys lacag leh, yar iyo weynna waxay taageersan yihiin arooska Zamzam iyo Cabdirasaaq. Haddii uu guriga tagana wax aan ceeb iyo maskax xanuun ahayn inaanu kala soo kulmin. Cali waxa uu qaatay taladii Saadaq waana uu soo laabtay. Daqiiqado kadib waxaa dhawaaqay taleefankii Cali. Markuu fiiriyay wuxuu arkay number uu aad u yaqaano, waa Xuseen oo ka mid ah Cali asxaabtiisa, weliba kuwii ku dhaliilsanaa inuu xiriir la sameeyo gabar reerkoodu qani yahay. Waa uu qabtay telefoonkii waana uu la hadlay Xuseen. Waxa uu hadal ugu bilaabay, waa adigii lahaa qalbigeeda ayaan hantinayaaye orodoo soo qaba waata hotel Samawade xafladeeda mehrunta ay ka socotee. Cali ayuu mar qura waagii ku bariyay jirkiisii oo dhanna baraf noqday, dhiigu ku qaboobay, isagoo markiiba noqday qori meel iska taagan. Ayuu saaxiibkii Saadaq shakiyay oo ku yiri, Cali maxaa ku helay, nambarka ku soo wacay muxuu sheegay? Cali ayaa ku jawaabay, Saadaqow inaad i celisid ma ahayn, sababtoo ah waan ku gaari lahaa guriga ka hor inta aan hotelka loo wadin. Saadaq waa dareemay in Cali wax ka murugaysiye ay tahay in gabadhii Zamzam ahayd la aroosayo ama ugu yaraan xaflad mehrin ah loo sameeyo. Hadalse kuma sii badninee wuxuu yiri, ina mari maanta waxaan ku geenayaa meel aadan weligaa tagine. Cali oo niyad jabsan wax uu sameeyay garan weysan ayaa Saadaq ku yiri, oo xageen aadnaa, ma meel ay Zamzam joogtaad og tahay? Saadaq oo yara dhoola cadeynaya ayaa yiri, war Zamzam ha lahaynine 100 Zamzam aniga kuu geenayay kaalay. Isla markiina gaari hareertoodii marayay ayuu joojiyay, kadibna Cali ayuu ku yiri kaalay soo gal gaarigan. Cali oo ay naftu dhibayso ayaa gaarigii soo raacay isagoo qolof bilaa qalbiya oo inta kursiga gaariga fadhiistay madaxa hoos u foorariyay. Dadka gaariga saarani badi way dareemeen in Cali niyad weyn uu hayo, balse qofna ma garan karo nooca niyadjabka Cali haysta. Waxaa la gaaray hoolkii loo socday. Gaarigiina Saadaq inta dukaan wadada dhinaceeda ku yaala galay ayuu 2 warqadood oo yar ka soo qaaday, kadibna xagga Cali soo aaday. Cali waa la socdaa dhammaan dhaqdhaqaaqyada Saadaq, balse wax hadal ah lagama hayo oo afkiiba juuqda gabay.
hore ayaa loo dhaqaaqay waxaana warqadihii laga dhiibay duleel yar kadibna irid ayaa la furay waxaana loo sheegay inay soo galaan kadib iridiina waa ay galeen waxaa gudaha ku yaal hool si aan caadi ahayn loo qalabeeyay si kal iyo laab ahna tahay loo sharxay nadaafadiisuna lagu dadaalay cali indho wax dayo ayaa ka soo haray saadiq iyo cali intay cabitaan horay u qaateen ayay kuraastii banaaneed laba ka mid ah fariisteen kaftan iyo sheekooyin badan kadib waxaa bilaabatay ciyaar qoobka ciyaara saadiq wuxuu ku qasbay gabar yar oo qurux alle u dhaliyay oo hortiisa kursi ah fadhisay halkii ayuuna sheeko iyo kaftan ku camirtay cali waa murugaysan yahay qofna lama hadlayo sidaa darteed weli waa keligiisa daqiiqado mar ay ciyaartu socotay muusikaduna si fiican isku dhex gashay oo la wada ciyaarayo ayay nasteexo oo dhalinta ciyaaraysa ku jirta waxay aragtay cali oo murugaysan oo meel iska fadhiya isla markiiba inta soo dhaqaaqday ayay inta cabitaan hore u soo qaadatay ag fariisatay intay salaantay oo qosol yar oo sun ah dhag ka siisay ayay ku tiri aboowe maxaa halkan keligaa ku fariisiiyey oo murugada kula dajiyey marnaba murugada kuma qurxoonide maxaa kugu wata mise qof mar hore qalbigaagii dhaawacay ayaa weli sugaysaa inuu mar kale kuu dhayo ma jiraa dhakhtar mar hore cirbad xanuun la'aan ah kugu duray cali ayaa ugu jawaabay waad mahadsan tahay walaasheeda inkastoo aanan is aqoon haddana waxaad ii noqotay qof kii ugu horreeyay ee igu dhiirigeliya inaan nolosheeda caadiga ah bilaabo waan jeclaan lahaa inaad magacaaga ii sheegto nasteexa ayaa ugu jawaabtay magacaygu waa nasteexa ee adna ii sheeg cali ayaa la yiraahdaa magaceega waad mahadsan tahay in badan nasteexo waa qof soo sirqa goysay oo qalbiyo badan oo sakuurad ku xirnaa jabisay isla markiiba waxa ay ku guulaysatay in ay cali ka qosliso oo murugadii ka yara fududeyso saadiq isaguna wuxuu kor kala socday cali markuu arkay cali oo faraxsan isaguna halkiisii ayuu baashaalkii ka sii watay cali hoolkan wuxuu ku dareemay deganaan badan wuxuuna go'aansaday inuu halkaasi si joogto ah u yimaado dhinaca kale zamzam waxaa lagu meheriyey wiilkii Kanada ka yimid oo adeerkeed u dhalay waxaana loo dhigay xaflad weyn oo dad badani ka soo qayb galeen toddobaad kadibna waxaa loo dhigay aroos oo malaha dadkii ugu badnaa ay ka qayb galeen markay toddobada ka baxeen Cabdirasaaq waxa uu u laabtay dalkii uu deganaa ee Kanada muddo kadib zamzam ayaa ka daba timid Cabdirasaaq waxayna si rasmi ah iskula degeen dalkaasi dhanka kalena cali waxa uu muddo dheer iyo silac badan kadib ku guulaystay in uu qalbigiisa ka tirtiro gabi ahaanba zamzam iyo wixii quseeyayba wuxuuna xiriir la sameeyay gabadhii habeenkii uu murugaysnaa qalbiga u dejisay oo murugadii ka tirtirtay si la mid ah wuxuu ka shaqo bilaabay iskuulka magaalada ku yaala oo uu macallin ka noqday 2 sano kadib wuxuu aroosay isla gabadhii qalbiga u dejisay wuxuuna noqday qof naftiisa iyo eheladiisaba caawiya oo nolol wanaagsan ku nool dhinaca kalena saadiq waxa uu ka shaqo bilaabay magaaladii wuxuuna guursaday gabar ay iskuulka isla dhigan jireen habeenkii hoolkana uu meesha kula kulmay sidaasna waxay labadoodu kaga gudbeen noloshii mugdiga ahayd iyo halisihii nololeed dhinaca kale zamzam markii ay dalka dibadiisii tagtay waxa ay la soo baxday dhaqamo xunxun oo ay ka mid yihiin inay isticmaasho dawooyinka dumarka ay ismariyaan kadibna ay jirkeedii baabi'isay taasina waxay sababtay inay Cabdirasaaq isfahmi waayaan uu gabi ahaanteedba uu naco kadibna uu iska furo kadibna uu diyaarad soo saaray kuna soo celiyay dalkii maalmo kadib ayay damacday inay bal asxaabtii la sheekaysato mise dhammaantoodba wayba ka yaqsanayaan oo waxay moodaan inay iska ilaalinayaan inay jirkooda taabato waxa ugu rooneyd Zainab oo runta u sheegtay kuna tiri saaxiibay wiilkii maskiinka ahaa nafsigiisii ayaa ku qabsaday qof kastana wuxuu ka aaminsan yahay fidna socota haddii la arko annaga oo isla joogna anna sharafteena halkaas ayay ku burburaysaa ee waxaan ka codsanaynaa inaadan dhib ii arag haddii aan ka fogaado ama aan ku soo xiriirin waayo zamzam quruxdeedii iyo qof ahaanteedii halkaas ayay ku qiimo beeshay iyadoo weli da'yar ayay la mid noqotay qof 90 kor u dhaafay qof kastana digtooni dheer ayuu ka qaatay hooyo walbana markay gabdhaheeda waaninayso iyada ayay tusaale ahaan ugu soo qaadan jireen sharaf dhacaasi iyo qaabdaradaasi waxaa ku sababay markii ay Kanada tagtay ninkii ayay isku dhaceen waxay bilowday inay tagto hoteelada lagu caweeyo iyadoo cidda ay rabto waxay doontaba ha ahaatee iskala ciyaari jirtay dadkii oo dhan ayaa ogaaday arrinkaasi waxaana la isla dhexmaray in ay tumato diintina ay ka baxday inkastoo ay waalidiinteeda arrinkaasi beenin jireen eedana dusha uga tuureen Cabdirasaaq oo ay ku sheegeen khayrul mas'uul kaasoo gabadhii xanaanaysan waayay kadibna isla markaana ku sii daayay dad iyo dal aysan aqoon nafsigii cali ayaa haysta ayaana la isla dhexmaray sidoo kale
guud ahaan daawade intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa sheekadii jab jacayl iyo jamasho Yurub insha Allah maalmaha soo aadanna waxaan idin bilaabi doonaa sheekooyin gaaban oo xiiso badan haddaad nagu cusub tahay subscribe haddaad saaxiibadeena ka mid tahay share like iyo comment waadna ku mahadsantihiin